زادها الحب نقاء. قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا. إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاطمة عبد النور. barnaamijkeeni oo ahay sheekada caruurta maanta waxaan isdahay sheekadii bal wax yar ka bedel. anigoo macalimad hootar hooyaan ahay, macalimadan waan ahay, haddana ayayaan ku biirsamay. marka waxyaalo badan ayaan ku fikiray. marka insha Allah waxaan ka hadli doonaa 3 nuqaad aan rabo inaan ka hadlo. hootar kow waxaa weeyaan maxaa sababta igu xambaaray inaan videohan duubo. sababta labaad waxaa weeyaan maxay ilmaha qisasayaasha loo sheekeynay faa'iidada ku jirta maxay tahay. tan saddexaadna waxaa weeyaan bal videogan aan sameeyey see habkee looga faa'iideysan karaa. marka haddaan usoo noqdo su-aasha maxay ahayd nuqdadii koowaad oo ahayd maxaa yani igu xambaaray inaan videogan on ilmaha sheekada u duubo. waxyaalaha igu xambaara waxaa ka mid anaga maadaama aan hadda soomaalinahay ka mujtamaceeni waagiyooni hore wadankeenaan joognay. waalidka waxaad arkaysaa eedo, habaryar, ayeeyo, qaraabadii dhan, hooyo, dadkiyaa wada joogaan. marka waxaad arkaysaa faamilkii gabadha waxay heli jirtay qof saacidayo, ama ilmihii hadda markaan nii sheekeynaan ku indhihi jiray sheekadan ayeedaya iga sheekaysay ilaa u naxariisto. marka laakiin hadda zamankii wuu isbedelay, qurbaa la wada imaaday. qof la arka ma haysto qof saacido, qof ilmihiisa usii sheekeynayo. marka daad wixii dhan waxay xoog ku dhacay waalidiinta. marka taasaad igu xambaartay ilmaha in loo sheekeeyo. fikradan saasay u dhalatay. haddaan midda nuqdadii labaad aan ka hadlana maxaan sababta u doortay sheekada caruurta. sababta sheekada caruurta u doortay arrimo badanaa jirto. haddaan soo khulaasayo oon ka hadlo yani nuqaadka asaasiga kow hotar waxaa la sheegaa sheekada marka ilmaha loo sheekeynayo oo looga soo bilaabo markaad cuniga marka aad tiraahdo buugga aad tirahdin sheekada maanta saas aad u akhrinaysid, waxaa la yiri ama ha noqoto carabiga oo dhinaca min alyamiin ila alyasaar, min midigta ilaa bidixda, ama english ha noqoto. ilmaha waxaa la yiri markaad saas ugu sheekeynaysid ilmaha wuu la raacaya. raacitaankaas ilmaha la raacaya indhihiisa markuu yar yahay maskaxdiisa way shaqeynaysaa. waa markuu yaryahay. hadduu weynaadana kelimado badanuu baranaya, hadallo badanuu baranaya. marka waxaa la yiri ilmaha oo iskoolka dhigtaan, ilmaha loo sheekeeya, ilmaha qisaska aqriyaan iyo ilmaha kale isku mid mama noqon karaan. cunugan wuxuu helayaa kelimado badan, macaani badan buu haystaa. okay, midda kalena buugga ama sheekada waxaa waaye waxyaalahan anaga aan aaminsanahay mabaadi ah, dhaqanka ilmaha waa u gudbinaysaa. midda kalena xataa okay markaad sheekeynaysid cunuga markuu kula fadhiisto waxaa noqonaysiin connect, yani waa isku xirnaanaysiin. cunuga wuu ku dhegeysanaya, waa isku dhowaanaysiin. taasna waxaa waa cilaaqadii ayaa la yani xoognaanayso. marka faa'iido badanay sheekada leedahay. daad waayo aad waxaad arkaysaa yani subxaan allah, ilaahay qur-aankeena qisasul anbiya aa noolagu sheegay. muxuu ahay sheekada yani nebiyaasha noolagu sheegay, asaalixiin dadka fiican aa noola sheegay. qofka because waxa waaye way ta'thiirinaysaa. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asaga xataa saasoo kale sheekada ugu sheekeyn jiray. marka sheekada daad waayo ilmaha aad u muhiim u tahay. marka saasaan u jeclaystay inaan yani qaybtaas inaan bal at least waxaan dhahay Faadimo bal waxle bal mujtamacaagi ama dadkaagi wax uga tar. midda kale aan nuqdada saddexaad aan ku khatimayo waxaa waaye habkee looga faa'iidaystaa videogaasheeda. waxaa looga faa'iidaysan karaa ani waxaan isdhahay haddaad masalan isbuucii hal mar ama 2 mar waxay nii noqotaba ood intaad daaratiin adiga ilmahaaga isla fadhiista, dhegeysta, kadibna munaaqashaha laga munaaqashto. sheekadan maxay kula tahay, maxay ahayd, ilmihii la weydiiyo su'aalo. marka maanta intaas yani sababta saasaan video u duubaaye. insha Allah waxaan u maleynayaa in la fahmay. khayran ii rajeynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.